dulimaasi media ayaa daawanaysaan wacan oo wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada xilligan aan idin hayo waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay dawladda Sacuudiga oo dalab culus hordhigtay maamulka Soomaaliland si uu uga noqdo aqoonsiga Israa'iil iyo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro oo qaatay go'aan yaab leh xilli dawlado kale oo Carabeed ay cadaadis xoogan saareen Soomaaliland haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa waxyaabihii Soomaaliland ay kala kulmeen dawladahaasi Carabeed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay war weyn oo ku saabsan xaaladda dalka kadib go'aankii xasaasiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay xiriirka Imaaraadka iyo Villa Soomaaliya oo carcar xoogan ku socota qaadaysana mar kale go'aano masiiri ah wararkeena kale waxa ka mid ah taliyaha sirdoonka dalka Itoobiya oo maanta booqasho degdeg ah ku yimid magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya haddaba maxaa ka jira in Itoobiya ay ka dalbatay madaxweyne Xasan inuu hoos u dhigo qadiyadda Soomaaliland ee maalmahan cirka ku jirta iyo mucaaradka oo khilaaf xoogan oo ka dhex abuurmay kadib go'aankii dawladda federaalka ee Imaaraadka ka dhanka ahaa markii ay mucaaradku isku qabteen in la cambaareeyo iyo in laga hadlo arrinkaasi qodobadaasaan ku faahin doona barnaamijkan insha Allah fadlan haddii aad cusub tahay subscribe tahay ilaawin gambalka taawo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena dawladda Sacuudi Carabiya ayaa lagu soo waramayaa inay dalab culus hordhigtay maamulka Soomaaliland si uu uga noqdo aqoonsigii Israa'iil ay ka heleen warar lagu kalsoonaan karo oo aanu helnay ayaa waxay sheegayaan in dawlado waaweyn oo Carabeed oo uu horboodayo Sacuudi Carabiya in ay amar culus duldhigeen madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro kaasi oo ay kaga dalbadeen arrimo ku saabsan in uu ka laabto aqoonsigii Israa'iil ay Soomaaliland siisay macluumaadyadan ayaa waxay tibaaxeen in xiriiro kala duwan lala soo sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro isla markaana lagu wargeliyay in la qaadi doono tallaabooyin waaweyn haddii uusan arrinkaasi ka laabanin Sacuudiga ayaa ugu hanjabay Soomaaliland in ay la kulmi doonaan cadaadisyo cunaqabatayno iyo weliba sidoo kale xayiraado dhanka kala dhinacyo kala duwan leh in dhinaca dhaqaalaha laga dhunqabto arrimahaasi oo dhan ayaa loo sheegay Soomaaliland laakiin xogta aynu helnay ayaa waxay sheegaysaa in markaasi Soomaaliland ay si weyn arrinkaasi uga goos adeegtay oo ay difaacatay aqoonsigii ay ka heshay Israa'iil Soomaaliland ayaa waxay ku dooday inay xaq u leedahay inay aqoonsi hesho isla markaana aysan hadda suurtagal u ahayn amaba aysan u fududeen inay markaasi qaado tallaabooyin ay ka mid yihiin inay ka laabato go'aankii ay aqoonsiga uga heshay dawladda Israa'iil Soomaaliland waxay ku dooday in muddo dheer wax ay sugaysay in hadda aysan qaab fudud uga laaban doonin isla markaana ay tahay arrinkaas mid aan suurtagal ka noqon karin xaggeeda marka loo fiiriyo Sacuudiga ayaa halkaasi wajigabah kala kulmay laakiin Sacuudiga iyo dawladihii kale ee Carabeed ee dalabka culus hordhigay Soomaaliland waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin aan la mahadin doonin haddii aysan waxba iska bedelin qorshaha ay hadda ku socoto Soomaaliland oo xaaladeedu ay noqon karayso mid aad iyo aad u adag oo sida hadda la filayo si ka duwan noqon doonta Sacuudiga oo xoolaha ugu badan ka dhoofsada ee dekedda Berbera ee Soomaaliland ayaa sidoo kaleeto waxa uu hadda doonayaa in uu siyaasadda Soomaaliya si dhab ah u farageliyo isla markaana uu ka shaqeeyo sidii wada hadallo ay u geli lahaayeen macluumaadyada la helay waxay tilmaamayaan in Sacuudiga uu u sheegay xubnaha iska soo horjeeda ee iskhilaafsan inuu diyaar u yahay in wada hadal dhab ah uu markaasi u furo xubnaha Soomaaliyeed ee isdiidooyinka ka dhaxeeya waxa uu ku wargeliyay in magaalada Makka iyo Madiinaba uu ku qaban doono shirar ballaaran oo si dhab ah wada hadal ay oo la galayaan madaxda Soomaalida isagoo aan faragelin sameyn doonin Sacuudiga waxa uu sidoo kale sheegay inuu diyaar u yahay in dawladaha Carabeed iyagu saamaynta iyo faragelinta ku haya mar waliba siyaasadda gudaha Soomaaliya in uu markaasi gacanta qaban doono isla markaana ay ku shaqeyn doonaan hindisihiisa ama aragtidiisa taasi oo uga gol leeyahay Sacuudiga inuu doonayo in si dhab ah ay u heshiiyaan u wada hadlaan u wada fariistaan xubnaha Soomaaliyeed ee muddada dheer markaasi iyagu hardanka uu ka dhaxeeyay Sacuudiga waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu diyaar u yahay in dhaqaalahaan uu taageero qorshe kasta oo markaasi ay ku heshiin karaan madaxda Soomaaliyeed laakiin Soomaaliland arrinkan iyadu way ka goos adeegtay oo waxay u muuqataa mid doonaysa inay aqoonsi kala sii hesho laakiin Soomaaliland ayaa laftarkeeda aaminsan isla markaana og in xaalad dagaal ay dhexda ka gashay marka Israa'iil ay xiriirka la samaysatay iyadoo la og yahay in dawladaha Carabta ay si weyn u diidan yihiin Israa'iil oo markaasi dhibaatooyin badan ka geysatay bariga dhexe laakiinse Soomaaliland waxay iyagu aaminsan yihiin in ictiraafkaas uu horseedi doono
in helaan aqoonsi ama in sidaasi ay ku baaba'aan. laakiin wararka kale ayaa noo gudbaya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi galabta khudbad u jeediyay wuxuu ka hadlay arrimaha dalka. madaxweyne Xasan Sheekh oo Villa Soomaaliya khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in la soo hoyay guulo muhiim ah isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadatay go'aano waaweyn oo dalka lagu badbaadinayo isla markaana lagu dhowrayo madax banaanida iyo midnimada dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha waxa uu u hanjabay cid kasta oo isku dayda inay dhagarto ama qiyaamayso dowladnimada Soomaaliya. waxa uu sidoo kale sheegay in cid kasta oo ka shaqeynaysa kala irdhaynta iyo kala goynta Soomaaliya gacan bir ah lagu qaban doono iyadoo dowladdu ay kaashanayso saaxiibadeeda caalamiga ah. saaxiibada caalamiga ah ayuu sidoo kale u mahadceliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ay ka shaqeeyeen wax badan oo Soomaaliya markaasi ay rabtay oo ay garab istaageen xilli garab weyn ay u baahneed. khudbadda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku soo aadaysa 2 maalin kadib markii uu madaxweynuhu sidaasi oo kale dadka ula hadlay. madaxweynaha ayaa dhanka kaleeto waxa uu markaasi sheegay oo uu si qoto dheer uga hadlay go'aanka masiiriga ah ee uu ka qaatay isutaga Imaaraadka Carabta, wuxuuna sababta ku sheegay in go'aanka ay ku saleeyeen ilaalinta madax banaanida. madaxweynaha wuxuu Imaaraadka ku eedeeyay inuu khatar weyn ku ahaa qarannimada Soomaaliya isla markaana uu waday kala qaybinta dalka. nasiib darro dowladda Imaaraadka noolama dhaqman sidii dowlad mid ah oo madax bannaan. marar badan ayaan ka dalbanay inay noola dhaqmaan sidii dowlad ah, ayuu yiri madaxweynaha. waa hagaag barnaamijkeena aad la socotaan. maanta magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya Ridwaan Xuseen ninka la yiraahdo, kaasi oo kulamo degdeg ah la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo taliyaha sirdoonka ee Soomaaliya Mahad Salaad. waxay dhinacyadan ka wada hadleen xaaladda markaasi gobolka iyo weliba arrimaha soo kordhay. macluumaadyo aynu helnay waxay sheegayaan in taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya uu waday fariin uu ka siday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed, kaasi oo loo waday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. macluumaadyo ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu wargeliyay oo Itoobiya ay codsatay inuu hoos u dhigo arrinta iyo weliba galka ku saabsan qadiyadda Somaliland, isla markaana loo baahan yahay in xaaladdu la qaboojiyo. Itoobiya waxa ay iyadu weli cadeeyeen mowqifkeeda ku aadan madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya tan iyo aqoonsiga Israa'iil ay siisay Somaliland. waana ay dhakan tahay Itoobiya oo waxay doonaysaa in ay ka faa'iideysato Soomaalidan markaasi isbursanaysa ee isiraysa markasta. taliyaha sirdoonka Itoobiya muddo 2 saacadood ah oo kaliya ayuu joogay magaalada Muqdisho, dib ayuuna ugu laabtay waddankiisa Itoobiya. ugu dambeyn saaxiibayaal, mucaaradka fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho buuq iyo khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay kadib markii ay isku khilaafeen isla markaana ay isku mari laayihiin ilaa iyo hadda arrinta ku saabsan go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadan in xiriirkii loo jiray dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. macluumaadyo aynu helnay waxay sheegayaan in xubnaha qaar ay soo jeediyeen in la cambaareeyo go'aanka dowladda, sidoo kale kuwa ayaa soo jeediyey in la taageero go'aanka dowladda. xubno ka mid ah mucaaradka weliba murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya kuwooda ugu cadcad waxaa si toos ah u biila oo dhaqaale ay uga helaan dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. wararkii aad kala socoteen Diblomaasi Media oo nageynta.